halkani waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug bartamaha magaalada ayaan taaganahay baryihii ugu dambeeyay waxa dunida inteeda kale soo ifbaxayay ama laga hadalhayay caabuqa coronavirus cabsi intee leeg ay ka qabaan dadyoga ku nool magaalada Dhuusamareeb shalay ayay ahayd markii kiiska ugu horeeyay laga helay caasimadda dalkanaga ee hooyo ee Muqdisho haddaba makrofonka ayaa la dhex qaaday dadyoga ku nool magaalada Dhuusamareeb waxa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug la hadalhaya cudur saameyn u geystay dadyoga ku nool dunida daafaha caalamka waxa la sheegay cudurka coronavirus inuu saameeyay ilaa 210 wadan in ka badan haatan uu soo gaaray qaaradda Afrika oo ugu horeyso Kenya iyo Ethiopia maalintii ugu dambeysay oo shalay ahaydna laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Muqdisho tan xigta waxay tahay hadii anagu aanu nahay dhalinyaro waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya siiba wasaaradda caafimaadka ee hogaaminayso wasiirada caafimaadka Dr. Fawziyo Cabdilaahi aan ka codsanaynaa in ayada xubinta ay ka leedahay ay ka qaadato doorka kaga muhiimsan oo markaasi ayada ay ku hormarin karto sidii looga hortagi lahay cudurkaasi corona cudurkan sida anagu dhan wada ognahayba saameyn weyn ayuu u geystay dunida wadan leh dhaqaalo ganacsi markaasi sareeya hanaan oo booliis looga hortago cudurrada ay wadamada qaar ka leeyihiin sida aynu wada ognahayna wadankeena Soomaaliya wuxuu kamid yahay wadamada haatan soo koraya saas markii ay tahay hadda wadankeena hadda uu soo korayo ma awoodo inuu iska difaaco cudurkaasi waayo wadankii ka imaado wuxuu ahaa China oo hana China maadaama uu ka imaado kala hantiisi sidee macquul ku noqonaysa in wadankeena iska difaaco waa laga yaabaa inuu iska difaaco waa sax ilaahayna uu nala garab gali karaa balse anaga maadaama wadankaas oo koodii ka imaaday wadankaasi waxay sameeyeen 7 maalmood ay gudahood waxay ku dhiseen meel loogu talagalay in xaruntaas dadka lagu baaro laguna karantiilo hase ahaatee dalkeena wali ma leeyahay waa maya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaar la siiyo iyo wasiirada caafimaadka ee Maruubuziya ayaga dhamaantood ay ka hadleen balse waxaan doonaynaa qorshe in loo dejiyo sidii looga hortagi lahaa aad ay mahadsantihiin bahda Fek Soomaali TV ayayna ka mahad celinayaa aad waxa uga cabsi qabnaa cudurka coronavirus haddaan nahay bulshada reer Dhuusamareeb qaasatan Galmudug oo reer Dhuusamareeb aad iyo aadan uga cabsi qabnaa maadaama Soomaaliya hadda cudurka ugu horeeyay oo hadda laga helay maalmaha ugu horeeyay ay ahayd oo laga helay Soomaaliya inkastoo Soomaaliya daawo tayale ay haysan oo tayo fiican la ay salahayn si wadamada kale daawo tayaysan oo fiican ma haysano kasaas awgeed cabsi aad iyo aad looga qabaa Soomaaliya qaasatan Dhuusamareeb inkastoo hadda waxa waaye dad badan oo calaamasaarka ka soo qayb galay ay jiraan oo wadamo kale ka imaanayo aad iyo aad looga cabsi qabaa maadaama ay Dhuusamareeb ay tahay meel dad badan imaanayaan oo calaamasaarka looga soo qayb galayo cabsi saa'id ayaa laga qabaa saas awgeed cudurkaas halkaan uga hadalna maanta cudurkan ilaahay naga najeeyo oo la yiraahdo coronavirus-ka oo runtii hadda wadamada dariska nala ah calaamadihiisa qayb ka mid ah laga sheegay waxaan kaloo u mahad celinaynaa dawladda Soomaaliya oo runtii warqadda ay ka soo saartay in wadamada cudurkaas uu ka dilaacay inaysan soo aadin dalka Soomaaliya in laga mamnuucay duulimaadkooda dadka jooga aan dadkuna loona safrin ayaguna aysan soo safrin inta la mamnuucay in badan oo kale oo coronavirus-ku oo hadda ka jirta walina safarku socdo dawladda Soomaaliya waa ugu mahad celinaynaa runtii dadaalka badan oo ay sameynayso waxaan kaloo rabnaa waa intaas ula sii dhawaata cudurkan ma lahan walaal ma lahan saaxiibtinimo dawladdan saaxiibaan la nahay iyo midaasaan isku fiicannahay midna ma lahan meesha uu ka dilaaco waa meel xaaladeedu ay khatar tahay marka dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay foojignaanta si laban laabto oo ay dawladda la kaashato in qalabkii xitaa lagu ogaan lahaa dadka qaba inay dalka la soo geliyo taasna waan ugu baaqaynaa waana runtii cudur ilaahay ha naga bixiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahayna soo gaarsiin oo ilaahay naga nabadgeliyo laakiin bulshada waa in laga foojignaada oo runtii wadamada dariska ah Ethiopia oo kale Kenya oo kale waa qof ayaan ka maqlaayay in laga sheegay marka waa in safarada Soomaalidu ay joojiyaan oo safarada la kala xadado oo dadka isu socodka la yareeyo
madaxa caafimaadka degmada Dhuusamareeb Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixinaya caabuqa coronavirus sababaha iyo xanuunada iyo halka uu ka yimid. ugu horreyn waa dhowahay waxaan u mahadcelinayaa TV-ga 5 Somali TV oo runtii aad TV ka shaqeeya arrimaha bulshada. haddaan su'aasha guda gala markaa maxaa sababa coronavirus waxa weeye horta wuxuu ka mid yahay cudurrada lagu kala qaado hawo mareenka waxa la yiraahdo ama qofka hadduu indhiso ama qufaco ama mataqaana qofkii inta qufaco meel derbi oo ku dhaamo xaakadii ama wixii diifkii kaleeto saas u gudbaa horta cudurkan coronavirusna marka hore waxa waaye waxa la zoonotiga la oo ah from animal to human ana xayawaan binaadam gudbaankaas nooc hadda socdo dalshada oo adduunka laga baqana waxa waaye waa nooc cusub waaye oo hadda soo saaray 2019kii bay WHO soo xaqiijisay mana jiro hadda koor noocan inuu ku dhaco adduunka hadda koowa marka waxyaabo waxa waa koow in qof markuu qufaco qofkii kale caafimaad qaba oo qofka qufaacay wixii oo virus uu qaato labo in qofkii hindhiso haddana wixii ku jiray qofkan cudurka qaba oo qofka u gudbiyo saasna oo ku bilaabo barasaaskii cudurku imanay cudurka coronavirus saaro sheegna coronavirus hal cudur ma waa group koox badan waaye oo virus u tagay waa nooca marka saan sheegnay strain ka cusub oo la yiraahdo COVID-19 waa nooca hadda dib ku ah adduunka soo si darteed marka waxa looga hortagi karaa waxay tahay koow in qofka cudurka qaba horta koow marka in la kaas la sameeyo isolation oo ah in yani la xadido socod dhaqaaqiis oo ah in meel lagu tala galay qofkaas la geeyo isla markaasna qofka booqanaya oo san maxalli oo qaato qalab u gashto tusaale ahaan inuu xirto maskiga oo wajiga iyo sanka ilaa indhaha sidoo kale oo gacmaha gashto gloves sidoo kale oo qofkii tataabanin daas waxa way ugu fiican qofka loo hortii karo waay marka qofka uu booqanayo oo qof jira oo tigiisa oo booqanays waa inaad adiga difaacaga u taqaana aad dhameystiran yahay oo gacmaha daboolataa wajiga daboolataa indhaha daboolataa sanka daboolataa dabayaaqada bishan ayaa waxaa la filayaa magaalada Dhuusamareeb inay martigelido dadyo fara badan ama wufuud heer caalamiya haddaba waase xaaladda magaalada Dhuusamareeb Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan 5 Somali TV Dhuusamareeb